waayo badan argagixisadu waa ku tamashaleeyeen dhulka deegaanada galmudug ee Soomaaliya maanta sagabalkoodii ayaa dhacay dhowr jiha ayaa waxa uga soconaya dagaal lixaad leh oo ay hormuud u yihiin ciidamada 12aad ee xoogga dalka Soomaaliya iyo cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka galmudug kuwaas oo si arxan darra ula dagaalamaya kooxaha argagixisada ah ee gacanta ku hayay muddo badan deegaano ka tirsan galmudug deegaanadaasna ka geystay muddadii ay gacanta ku hayeen jariimooyin aad u fulxun oo dadka dayarta ay kula kaceen durba iminka waxaa bilowday taakulo ay dadka reer Puntland iyo Soomaali weynba ay u sameynayaan walaalaha reer galmudug ciidamadooda gaarka kuwaas oo lagu baritaarayo howlgallada xoreynta deegaanada galmudug ee argagixisada lagaga sifeynayo maamulka gobolka mudug kan degmada Gaalkacyo iyo shacabweynaha gobolka mudug ee Puntland ayaa taakuladii ugu horeysay ee ehelnimo iyo walaalnimo ugu deeqay ciidamada soo majeystayaasha ah ee maamulka galmudug iyo ciidanka 12aad iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo deegaanada galgaduud iyo mudug inta u dhaxaysa ka wada howlgallo lixaad leh oo lagu soo afmeerayo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab mas'uuliyiinta labada dhinac ee gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug sida taliyayaasha qaybaha ee labada dhinac gudoomiyayaasha gobolada ee labada dhinac gudoomiyayaasha degmooyinka ee labada dhinac waa Puntland iyo galmudug ayaa marxabayn iyo walaalnimo iskaga gudoomay deeq iskugu jirtay saanad cunno iyo mid shidaal oo loogu talagalay ciidamada soo majeystayaasha ah ee galmudug kuwaas oo walaalaha Puntland ay ugu deeqeen walaalahooda dhanka kale ee galmudug hadalla aan qoraal iyo hadal midna lagu soo koobi karin oo marxabayn iyo dhiirigelin ciidan iskugu jirta ayaa dhammaan mas'uuliyiintu halkaas ay ka jeediyeen oo dagaalka ka socda Bacadweyne iyo Wisil in maamulka dowladda Puntland uu taageero dhinaca logistikada uu ka geysanayo madaxweynaha dowladda Puntland uu amar ku soo bixiyay inaynu arrinta fulino gudoomiyaha gobolkuna hormood noogu yahay annagoo degmadii ah iyo booliskuna aanu hawshan soo diyaarinay halkan waxaa jooga shixnad logistika oo aan ugu talagalnay ciidamada mujaahidiinta ah oo dagaalka kula jira argixisada inaanu gaadiidkana shidaal baan ugu talagalnay ragga shaqaynayana waxaan ugu talagalnay raashin dry food ah oo waxa weeye raashintii ciidamadu markay dagaalka ku jiraan loogu talagalay isagoo bisil inay cunaan ama waxa weeye kaga baaqsadaan in dab la shido lagu mashquulo ma aha taageeradii ugu dambeysay waxay noqon doontaa taageerooyin isdaba jooga dad muslimiin aan nahay waxa la rabaa waxa diinteenina haleeyay dadkeenina haleeyay diinteenina suuro xumeeyay dhaqankeenina haleeyay inaan iska wada qabano ganacsatada waxa la rabaa ganacsato xoolaha haysan maysaan imanna maysa ganacsatadu inta xoolaha haysato in ciidanku gaajo u baqtiyaan oo dagaalka ay ku baahdaan wallahi bakhaarada waa rarayna idinku hortaaga ma rarayna hadii naasi sax ku keenin wallahi xawlaadu inay shaqaynayn wallahi shirkadaha isgaarsiintu inay shaqaynayn dagaal baan ku jirnaa dagaalka waxa la rabaa ganacsato inaad gashaan hadaad gali weydaan khasab baan idinka qaadiya xoolaha meeshaan waxa weeye la isdooran may inta nin dhinto oo nin wiilkii la toogto oo nin sharciga la marsiiyo inuu nin iskaga dul raaxaysto iraanu ganacsiga lacagta tirsanaya dadkuna ha iska baabeen inay ka yeelamayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa naga gudoomaysaan agabka yar oo isugu jira shidaalka iyo raashinka waxa naga gudoomaysaan qalbiga iyagii baa saaran baabuurta waxa saaran ma badna laakiin qalbigii Puntland baa saaran naga gudooma walaalnimo naga gudooma mudana gudoomiye mudana mayor iyo mas'uuliyiinta kale aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa arrintan logistiga oo runtii qiimo weyn ugu fadhisa dagaalka ka socda area Bacadweyne iyo inta hoos tagta wax weyn buu u yahay runtii maanta gurmad aad iyo aad ugu baahnayeen dadka culayskaas ku jira weeye waana filaynaa sida u sheegteen inta in ka badan haddii aan nahay anoo matalaynaa dowladda galmudug ee aan kaga mahad celinaynaa madaxweynaha galmudug iyo guud ahaan madaxweynaha Puntland go'aanka midnimada ah oo ay wada qaateen in labada dal iyo labada shacab oo walaalaha ah ay si midnimo isku kaashadaan haddaysan runtii ayaga ka imaan ma dhacdeen la iskaashado aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa annagoo ku matalaynaa dowladda galmudug waan la wareegnay hantidan qiimaha badan ee aad noo dhiibteen waan kaga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol runtii heer gobol waxay ku maqan yihiin meesha culayska ka jiro ka degmo ahaan baan u matalaynaa saaka ulana wareegaynaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan gaarsiino walaalaheena reer Puntland meel walba ay joogaan aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa reer galmudugna hadiyada u soo dhiibteen iyo garab istaagiina si buuxda u gaarsiinaynaa iskaashigeennuna ilaahay idinkiisa wuxuu noqon doonaa mid joogta oo wax walba aan iska kaashano dad walaala oo isku mid ah isku hooyo isku baahan maanta ma mudan tahay in lagu daawado howlgalka sifaynta kooxaha argagixisada Al-Shabaab
ee reer galmudug ay ka dhidhiyeen doonayaan inay dhulkooda uga xoraystaan. Aragtida guracan oo kaliya ayaa muujinaysa in lagu daawado, balse fikirka saliimka, qalbiga wanaagsan iyo wadaniyadu midna ma dhigayso in maanta galmudug lagu daawado howlgalkaas. Shacabweynaha Soomaaliya guud ahaantiis meel walba uu joogo waxaa la gudboon in walaalaha galmudug iyo ciidamada xoogga dalka ee howlgallada sifeynta kooxaha argagixisada ka wada deegaanada u dhaxeeya mudug iyo galgaduud in ay baritaaraan, gaar ahaan dhanka saadka iyo shidaalka, taasoo ciidamada u muujinaysa inay haystaan dad wanaagsan oo walaalahooda. Ummadda Soomaaliyeed ma mudna inay gobonnimadooda iyo xornimadooda ka sugaan dowlado shisheeye. Bahda Afmeer waxay si gaar ah ugu mahadcelinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan howlgallada sifeynta kooxaha argagixisada ah ee shacabka reer galmudug iyo dowladoodu ay ku muujinayaan doonayaan inay dhulkooda uga xoraystaan. Afmeer goor walba waxay idiin soo tabin doontaa warar walba oo la xiriira soo afjaridda kooxdan guud ahaan Soomaaliya. Afmeer.